isbitaalka caalamiga Shaafi ee magaalada Baydhabo waxaa xaraga laga jaray December 2023 waxaana uu ka mid yahay isbitaalada sida gaarka ah ee loo leeyahay. Shaafi ayaa waxa uu bixinayaa dhammaan adeegyada caafimaadka waana mid ay u dhameystiran yihiin qalabkiisa caafimaadka. gobolada Baay, Bakool, Shabeellooyinka iyo Gedo ayay uga imaanayaan bukaanada u baahan in ay xaaladooda caafimaad ay u soo aadaan isbitaalka waana mid ay bukaanada uga maarmeen in ay u aadaan qaar ka mid ah isbitaalada kale ee dalka. xilligan booqanayay isbitaalka waxaan ku arkay bukaano laga keenay degmooyinka Diinsoor iyo kuwo kale kuwaas oo xaaladooda caafimaad ay ahayd mid liidata balse muddo kadib maanta sidii hore kaga duwan yihiin xaaladooda caafimaad. gaadiidka ambalaasta ee isbitaalka caalamiga Shaafi wuxuu ka mid yahay waxyaabaha lagu caawiyo bukaanada sida degdega ugu baahan in lagu soo gaarsiiyo xarunta taasi oo ah mid lacag la'aan ah wuxuuna shaqeynayaa habeen iyo maalin. agaasimaha guud isbitaalka caalamiga ee Shaafi magaalada Baydhabo Xasan Maxamed Cabdi waxa uu marka hore ka warbixinayaa tan ilaa iyo maalintii la furay isbitaalka Shaafi adeegyada caafimaad ee loo qabtay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Baydhabo iyo adeegyada uu bixiyo guud ahaan isbitaalka. isbitaalka Shaafi International Hospital ee Baydhabo mayba isla stage kala duwan oo eedan faraha badan hadar may marhaye meel almeel ku wanaagsan ee isbitaalka ku talagalay qalabadii iyo anaga daryeelka caafimaad anaga dhaqaatiir khibrad leh oo lahan huli isbitaalka Shaafi magaalada Baydhabo inta badan mayba hadda shaqeeyay 24 adeeggan oo noqdaan mayba kumid dhaqaatiirta dhamaantood wada fadhiyaan dhakhtarka haweenkii oo takhasus haweenkaas iyo daaweyn iyo khaliimaadyo dhakhtarka caruurta oo usuun takhasus caruurta iyo la tacaalida iyo dhakhtarka khaliimaadka guud oo usuun takhasus khaliimaadkaas wala la halmaal dhakhtarka cudurrada guud oo usuun takhasus cudurrada guud gaasad iyo cudurrada kale gastroenterologist iyo mayba dheeraad ay usuun qaabilay dhakhtarka ENT una dhagaasanka oo usuun specialist ah oo takhasus dhaga iyo sanka dhakhtarka oo dermatology oo usuun takhasus maqaarka intaas dhaqaatiirka howlgala isbitaalka Shaafi ee magaalada Baydhabo. mid ka mid ah bukaanada ku jira isbitaalka Shaafi International Hospital ee magaalada Baydhabo ayaa ka warbixiyay xaaladiisa caafimaad tan ilaa iyo intii la keenay isbitaalka. horta kawar mudan bishanay waliba luton wara oo dirin yaraa leeshanay oroladu yalla oo gali doctor oo gali hatana fiican dareemay nagadi kaliida ku haray hatana marnamada waynagay way insamay alxamdulillah ida maalinta doctor in samay alxamdulillah idii caafimaad qabo maasha Allah leeyahay maasha Allah dadka iyada la indhawa minna qaabka horta dabka wali boodada la galo mudada la gal dhagmaanka adduunka ku dhagmaanka di nanka adkayna maan oo liisho ku samina qaabka iska kileeyo jeelka amal kiliya lingo gooni degan la indhawa le dhigay. Abduqaadir Xaaji Axmed Dr. Ciro waxa uu qaabilsan yahay cudurrada guud iyo qaliinada waxaana uu ka waramayaa qaliinadii ugu dambeeyay ee laga fuliyay isbitaalka iyo sida loogu guuleystay. bukaanada way badan yihiin waxay isugu jiraan bukaano xanuun qabo iyo kuwa qaliin u baahan meelaha ay ka kalimaadeen aad u badan tahay waxa kamid ah Xudur, Waajid, Diinsoor, Bu'aale, Saako, Baardheere, Luuq dhammaan meelahaas oo dhan iyo meelo kale hadda aan inta ku soo koobi karin bukaana ka yimaado. bukaanadaas qaar waxay qabaan xanuuno daawada ay ku filan tahay qaarna waxay u baahan yihiin daawada way ku filan weysay waxay u baahan yihiin in qaliin lagu soo biyo. qaliinada waxay u badan yihiin qaliinada barooyinka kuwa ragga ku dhaco sida bukaanka hadda dhawaan soo arkeen oo kale Cabdinuur qaliinkiisu wuxuu ahaa prostate waa qaliin qanjir ku jira kaada heesta oo inta badan maxay tahay marka uu jirado sababa in kaada qofka ku xiranto marka qofka kaadan waayo waxay noqonaysaa qofkii in la cabiro waxa jiro marka uu gaaro uusan daawo ku filnaanin laakiin uu u baahan yahay in qaliin lagu sameeyo ama prostate cancer bal yiraahdo
oo maxay tood markasta in la qala maahan daawada ay ku filnaaneen Cabdinuur saa aragta qalliin loo sameeyay muddo 21 maalmood ka hor ah marka isbitaalka la keenayay ma kaadin karin kaadi way ku xirneed marka ugu horeyso tubo la geliyo 2 litir iyo ka badan kaadi ah ayaa ka soo baxday oo ku xirneed kaadi heesta dhexdeed qalliin aan ku sameynay qanjirkii aan ka soo saarnay qanjir aad u weyn oo maxay tood kaadi ku xiray waa laga soo saaray qalliinkiisa alxamdulillah waa lagu guuleystay xanuunada guud aniga waxaan qaabilsanahay xanuunada guud iyo qalliimada guud bukaanada kale waa bukaano xanuuna qabo maxay tood caloosha wadnaha kaliyaha beerka dheefshiidka xanuunadaas ay noogu yimaadeen kuwaasna waxaa ku filan daawo kuwa qaarkoodna waxaa waaye qalliin lagu daaweeyaa oo haddii buro ay jirto ama ay mindhirkoo kale uu xiran yahay hadda nasiib umaadan yeelana waxaa jira bukaan dhowr maalmood ka hor isbitaalka ka baxay oo maxay tood ka xirnaa caloosha qaybta weyn oo bu'da la yiraahdo iyo maxay tood beeloriga laba dhaxdood uu ka xirnaa asagana qalliin aan u sameynay oo la yiraahdo gastrojejunomy qalliin la yiraahdo ayaan u sameynay alxamdulillah wuu fiican yahay raashinku wuxuu rabo cuni karaa nabadiisu qabaa isbitaalka caalamiga ee Shaafi ee magaalada Baydhabo dhaqaatiirta ka shaqeysa dhammaan waxay ku hadlaan afkaaga hooyo waxayna mar waliba diyaar ku leeyihiin adeegyo dhameystiran dhageysiga xaaladaada caafimaad iyo in ay kugu adeegaan sidaad ku qanacsan tahay